بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومدى الصومالي مالك السؤال جوبتو waxaan ka tacsiyeynaynaa kow marka ugu horeyso dadkii abriyada ahaa ee walaalaha ahaa ee maanta goobtan ku naf waayey ilaahay ha u naxariisto jannadii firdaws allah ka waraabiyaan leenahay inta dhaawacaana ilaahay ha caafiyo allah u boogadhayo intaa kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ummadda ugu weyn caawa halkaan aan u soo istaagno waxay tahay walaalayaal inaan fahamno nimankan ujeedada ay ka leeyihiin waxa ay sameeyeen dadka meeshaan maanta ay ku laayeen 5 sano kadib bisha Oktoobar sanad guuridii shanaad haddana maanta inay ku soo noqdaan halkaan ay dad Soomaaliyeed abriya ku laayeen dadkan iyay ahaayeen dad Soomaaliyeed oo ka soo kabanayo dhibaatadii nimankan ay u geysteen 5 sano ka hor kuwii dhaawac ahaa oo soo biskooday kuwaan daalmay oo curyaamiin dhinac ka ah kuwa agoon ah oo waalidiintood iyo walaalahood iyo dadkooda ahalka oo ku baxay iyo kuwa kale intaba gabdho Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo saaki u soo baxday in ay maxaan ku yiraahday ilmaheeda maanta qadadii cun lahayn caawa cashadii cun lahayn soo raadisay arday wasaaradda tacliinta saf ugu jirto in shahaadooyin ay ka qaadato muslimiin masaajidka maxaan ku yiraahday joogay ama ka soo baxayay meesha ku yaala iyo dad saf musaafiriin ah oo jidka ku safrayo jidka maray dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal maxaa dambi ay galeen dadka maxaa loo dilay qof cudur daari karto oo xataa sabab macquul oo la fahmi karo sheegi karta ma la arkaya sabab yani macquul oo dadka loo hadaf looga dhigto loo waxay nimankan waa nimankaas waa khawaarijtaas waa arxan laawayaashaas sidaas ay soo ahaayeen nimankan iyo annaga ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaala ka dhaxay saacadaas aan idin la hadlayno qaybo badan oo dalka kamid ah ayaa xabadi ka socota habeennimadan haddii ay tahay galmudug haddii ay tahay hirshabeelle haddii ay tahay koonfur galbeed iyo haddii ay tahay jubbaland intaba dagaala ka socdo saacadan habeennimo ah oo nimanka khawaarijta lagula jiro geesiyaasha ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ay kula jiraan nimanku waa isdileena dagaal naga dhaxeeyo laakiin waxa la dagaalamaa qofka kula dagaalamayo qofan kula dagaalamay gabar ganacsi yar meel ku haysata wiil arday oo saaka soo dheelmado shahaado soo qaaday isla imtixaanaadkii aad ka baxday shahaadadoodii soo qaaday aad jaamacad aadiday isla kuwa kale oo safrayo jidka saarnaa oo afgooy u socday ama ka yimiday kuwa isbitaalka banaadir tagay ee ka soo noqday yani dadka meesha maraya dadkaasi ahay ilaa hadda tirada dhaawacay tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaa dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhawaad dhaawacyo kalena way soo bixi doonaan dhimasho kalena way soo bixi doontaa waa taariikhdii zooba labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii sax maaha ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ilaahay idankiisa Oktoobar kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkiis ma dhici doonaan awood iyo fursad iyo kashaashimo ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana
waa noolnahay waay wuxuuda ogaada niman jabay dagaaladii looga adkaaday bannaankii looga adkaaday ciidankii u adkaysan waayo ka hor imaan waaye inta soo dabamaryeeya muxuu ahaaye dadkii abriyada ah ee maxasti gadaalka gumaadaya waay waa ka adkaanayna waana ka adkaanay haddii aan la yidhaah ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego baabuurka qarxay alaabta isku rakibneedoo qarxday xaggee ka yimaadeen beer shabaab leeyahay miyay ka soo baxeen warshado shabaab leeyahay miyaa muxuu ay ka soo go'een oo laga soo saaray lacagta walaal kale oo soomaaliyeed oo bixiyey waay waxa dadkanaga maanta halkan ku leehay walaalka soomaaliyeedow cabsiyaa ii geysay dheh shabaab ra'yigoodan jecelahay dheh laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday dadkii dhaqaalaha bixiyey kii baabuurka ka iibiyey kii gurigiisa ay joogeen kii garaashkiisa ay soo mareen intaas waay qof kasta oo shabaab gacan u fidisa macaamil la yeesha qarisa dhaqaala siisa dadka ayadaa dishay dadka aad dishayna waa noocaas ogow askari dagaalamaya oo soo taagan oo faranta ku jira ma ahayn hooyo hilib gadaysa mid maxaan ku rahaa khudaar gadaysa iyo wiilkaa yarkaa ardaygaa gabadhaa yarkaa ardayda ay shahaadada qaadanaysa iyo wadaadkaa masaajidka u sii socday ama ka soo baxay iyo kaa kale musaafirka ah ee waddada saaraa dadka la'da waa dadkaa ka fikir xanuunka ay leedahay caawa ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay ku lahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaad shabaab dhaqaala siisid inaad qarisid inaad ka baqdid meeqa ma laga yaabaa kuwa lacagta dhiibow walaalihiin wiilashiinnii gabdhahiinnii kuwa aad jeclaydeen oo idila dhasho axibada ahay inay ku jireen maanta adinkuna aad lacag dhiibteen inaad ka badbaadid adiga shabaabaa idilaa intaa bistoolad la iiga haya saanaa la iyeelaa taleefonaa la ii soo diray cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagtii suurtagal ma tahay xisaabtan isweydii adigu lacag bixiyaha shabaabow isweydii war khawaarijtu arxanna ma leh islaamnimana ma leh waxay ku tooran yihiinna ma leh waa ka adkaanay waana ka sii adkaan doonnaa intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ka codsado dadkaa walaalaha ah ee dhibaatadu gaartay isbitaallada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaallada in dhiig la siiyo la tago dhiig lagu tabarruco haddii aan layidhaha ilaahay hortiisa iyo gargaar ummadda loo gargaarayo qodobka labaad cid walba oo wax u qaban karta qof walaala oo halkan ku dhaawacmay iyo qof walaala oo halkan ku geeriyooday eheladiisii iyo ilmihiisii qof kastoo wax u qaban karta inuu qabataan raba dowladda soomaaliya ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan ummadda soomaaliyeed dadka halkan wax ku gaaray ee khawaarijtu ay dhibaataysa maanta iyo kuwii 5 sano ka hor ay dhibaataysay iyo kuwo kasta oo ay khawaarijtu dhibaataysa carruurtooda dowladdu in ay waxbarasho free ah siiso ayaan caawa halkan ka iclaaminayaa wasiirka wasaaradda tacliinta waxaan farayaa in dhallinyaradaas ilmahaas agoontaas waxbarasho dowladdu ay u hesho free ah oo aan bisha aakhirkeeda aawi lacagtii tuwishinka aawi $10 aan lalahayn inay u hesho sida ugu dhaqsiya badan haddii aan la yidhaahdo wax kastoo kaloo daryeela oo dowladdu ay heli karto ama soo haaba kartana waa la raadin doonaa guddiga la magacaabay waxaan ka codsanaynaa dadkaasi inay meel ku ogaadaan soona diiwaan geliyaan haddii aan la yidhaahdo caalamka walaalaha soomaalida
iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ah ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya in dhaqaatiir loo soo diro ka kaalmayso isbitaaladeenna dhaawacyada qaarkood dadka tiradooda intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaale iyo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto wasaaradda caafimaadka cilaamin doonto sheegi doonto waxaan codsanaynaa in si degdeg ah loogu soo gurmado dadkaas dhibaataysan isbitaalada yaallo dibadda uma wada qaadi karno wakhtiga aan fasax iyo awood iyo diyaarad dibadda u qaadda aan helaynaa aane wax badanaa dhibaato ah dhacay ama dad badanaa adeeca u dhimanaya waxaan codsanaynaa in nalala soo gaaro dhaqaatiir iyo daawo dadkaas khawaarijtu ay dhibaataysay maanta meeshaan shilku dhacay ee boqolaalka gaaray lagu daaweeyo lagu dabiibo haddii alla yidhaah dowladdu hay-ad kastoo dowladeedna waxaan faraynaa inay u istaagto daryeelka dadkaas daawo loo helo ilmahoodii la dabagalo kuwa maxaanku rahdaye xanuunsanaya la booqdo kuwa dhintay allah u naxariisto loo duceeyo in ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo waxaan leeyahay walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta meel kastoo joogaan cabsida iska yareeyaano ha ka kaaftoomaano inay cabsi daraadeed walaalkood kale u dhinto adiguna maanta dhimaleed uma dhimanaysaa kana soo hormari maysid kana dib dhici maysid cabsidu caqiidadaada ayay meel uga dhacaysaa iyo iimaankaaga cabsida aan ka adkaano khawaarijtana aan dhammaystirno way dhammaadeen aan dhammaystirno inta dhiman dadka Soomaaliyeed dagaalka ay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan waa ku hambalyeynaya waa bogaadinaya waana u tacsiyeynaya dagaalan ku jirnaa dhimasho waa la kulmaynaa nin nafla caari ah wuxuu sameeyay berida baan la kulmi doonaa laakiin dadka Soomaaliyeed ka badan ka xoog badan ka awood badan ka dhaqaale badan ka saxsan oo wadadii saxda ahayd ku taagan meel dheerna lama tegi doona ilaa inkiis aad iyo aad u mahadsantiin